haddii aan u gudagalo furitaanka munaasabadan iyo furitaankeeda munaasabadani waa kulan wacyigelineed oo aynu maanta ku qabanayno magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer taariikhduna ay galabta tahay 17 bisha shanaad 1442 hijriya waxa kulankan cinwaankiisu waxa weeye waa laba nololood waxaana halkan ay noogu martiya walaalaha kala ah Axmed Cabdikariim oo midigtayda fadhiya oo isaguna maanta halkan soo gaaray iyo walaalkeen Maxamed Siciid Cabdi oo isaguna bidixdayda fadhiya iyaga ayaynu kulankan insha Allah u qabanay waxaynu kulankan labada nololood aynu kaga hadlaynaa farqiga u dhaxeeya noloshii hore ay ku jireen aad wada ogeydeen iyo nolol markii ay ka baxeen nolosha ay galeen mawduuca qura ayaynu diiradda saareen waxa u dhaxeeya noloshii hore ee ay ku jireen markii aad ogeydeen xaalkii ay ku jireen iyo shaqadii ay ka shaqaynayeen ee ahayd fanaanimada iyo musiga iyo maanta oo ay ka baxeen waxa u dhaxeeya ayaan doonaynaa inay inooga sheegaan qodob kala jira oo munaasabadani keensanayso in loo qabto raggani waxay ahayn rag caana bay ahaayeen saameyntooda leh waxa weeye bandhigyo qaban jireen ay ka soo qayb gali jireen boqolaal iyo kumanaan inta ka daawan jirtay YouTube-yaduna malaayiin ayay ahaayeen dadkaasi markaa waajib waxay is saareen maadaama ay atbaac lahaayeen dad ay lahaayeen inay u sheegaan dadkoodii xaalkooda maanta halka ay ku sugan yihiin saameyntooda ay leeyihiin saasay munaasabadu daaran tahay aan toos u furo mawduuca inaan weydiimaan ka dhigayaa barnaamijkeena weydiimo noqonaya walaalo waxaad noo sheegtaa Axmed Cabdikariim waxaad noo sheegtaa noloshii hore sawir naga sii waxa ay dadku arki jireen hore yani adoo heesaya adoo caana adoo dad badan ku imanayaan noloshaasi say ahayd noloshaas sawir naga sii ta dambana ku xiji oo sawir naga sii noloshan maanta aad ku nooshahay walaalayaal salaantaas islaamka baan hawada marka hore idiin soo marinaynaa sida sharafta leh ee karaamada leh ee aad noo soo dhaweyseen haddaad tihiin reer Burca waan idinka mahadcelinaynaa bacd Allah halkan isugu kaaya keenay annaga muhiimadayadu waxa weeye sida walaalkeen sheegay inaan xoogga saaro dhalinyarada la qalday oo qaldamay oo xaaladaha noloshan laga yaabo in ay ka faa'iideysan lahaayeen noloshooda oo si qaldan haddana uga faa'iideysta oo shaydaanku uu kula taliyo inay wadadii saxda ahaa ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u abuuray inuu ka leexiyo laanahu shaydaanku Rabbi subxaanahu wa ta'ala ballan buu la galay ilaahayna subxaanahu wa ta'ala wuxuu sidaas oo kale u ballan qaaday asaga iyo wixii raacaba inuu jahannaba ka buuxin doono waciyaadu billah marka bal horta inaanu taa ku nuxnuxsano aniga iyo saaxiibaday wacdiga iyaduna meesha kaba marna inaynu kelmadaysniraahno awalan horta waxaan ku bilaabayaa inaynu taqwallah inaynu horta rabbi ka cabsano inagoo dhamiba horta waa inaynu rabbi ka cabsanaa subxaanahu wa ta'ala li'annahu rabbi isaga ina abuurtay isagaynu u noqon doonaa
usaga khayr iyo adduunyadeena iyo masaalixdeena oo dhan usageen rabbi subhanahu wa ta'ala in nasiya sidaas awgeed horta waxaan la ka rabaa inaynu taqwallah horta isu dardaarano cabsida ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo inaynu baqano oo ka baqano waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa yaala oo ah cadaab oo aynu rajayno dhinaca kale to waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa yaala oo maxay yihiin naxariis iyo jannooyinkaasi iyo naxariistaas rabbi subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay qofka muslimka ah ee soo dhinta ee mu'minka ah ee adduunyada markuu joogay ka faa'iideysta ee raaca wadadii aan ugu talagalay intuu adduunyada ku soo raaca oo ku soo shaqeysta waxaan ku abaal marin doonaa jannooyin iyo inaan marka horeba horta raali ka noqdo oo adduunyada intuu joogo maalkiisa loo barakeeyo oo adduunyada intuu joogo xaasaskiisa loo barakeeyo oo adduunyada intuu joogo cimrigiisa loo barakeeyo oo adduunyada intuu joogo wax walba oo adduunyada kale yahay oo hadaf ah ilaahay subhanahu wa ta'ala baraka u geliyo kadib adduunyada maxaa inoo ku xiga ilaa daaratani daaraynu ku waarayno oo ku noolaanayno ma waxaan ognahay awoowayaasheen waa tageen ayeeyooyinkeen tage hooyooyinkeen qaar baa tagay aabbayaasheen qaar baa tagay walaaladeen qaar baa tagay abtiyaasheen qaar baa tagay dadkaas oo dhan wayna ka tageen waxa laga yaabaa inaynu inagu iilka geynay oo ilaa qabriga sii kaxaynay oo inuu sii kaxaynay halkaa oo inu ku soo aasnay oo soo rognay kadibna aynu halkaasi ku ilownay qofku markuu halkaasi galo oo qabriga intaynu ciidda gam ku siino aynu ka soo laabano nabigu wuxuu noo sheegay salawaatullaahi wa salaamuhu calayh saddex shay baa qofka halkaasi u raacaya saddexda shay oo raacaya laba way ka soo noqonayaan oo godka la geli maayaan waa ehelkiisa iyo maalkiisa wuxuu shaqaystay ama daara waaweyn dhiso ama maraakiib badan yeelo ama dee adduunyada bar lahaw aday ku taalla maalkaagu waa kaa soo noqonaya ehelkaaguna sidoo kale ehelkii wanaagsanaa haddaad dad cidda ugu badan ka dhalatay halkaasay kaaga soo tegayaanoo badidooda waxba ku tari mayso wax allaale iyo waxay ku taraysaa male hal shay baa halkaasi kugu haraaya oo godkaasi kula gelaya waana halka shay ee layla ka baahan yahay maadaama aynu dhallinyaro nahay hadda intayna halkan fadhidaan dhallinyaro inuu badannahay odayaashu wayna ku yaryihiin halkaa shay waxa weeye waa camalkeen marka walaalayaal bointigu waa halkaa maxaa nayla ka rabaa marka waxaa nayla ka rabaa haddaynu dhallinyaro nahay in aynu camalkeenna hagaajino labadaas waa soo noqdeen halkaasina waa camalkeenni waa inala godgalay markii layna ka soo laabtay baa camalkeennii halkaasi nayla tusay camalkaagu hadduu hagaagsan yahay oo uu noqdo camal hagaagsan dee wixii ka dambeeyo oo dhanna waa dhiibaatay oo waa kuu hagaagay camalkaagii baa kuu hagaagay ilaahay baa raalli kaa noqday yaa malaa'igo raxma kuu imaanaysa samaday kafan ka keenayaan cajiib ah cadarra lagu soo habeeyey halkaasaa ma garanaysaa waa loo tahniyadaynaya hadday naftu noqoto naf dee xumaatay adduunyada intay joogtana dee iskaga jiri jirtay liilalow iyo xaalad kale walaalkay axmed aan kaaya dhex galo waxa weeye maadaama barnaamijkan hagay wadwada booqsa waayahay walaalkay wuu sii wadayaa waxaan doonayaa si weyn inuu uga faa'iidaysano walaalkay erey wacan buu waday laakiin anaa ka dhex galay waxaan doonayaa wadwad adaa waday mikrofoonka wuxuu socolinaya waxaan doonayaa maadaama waqtiga qorraxda handiida iyo qorraxdii noo dhacdo waxaan doonayaa waxaad ku jirtay nin maxaad ahayd maaha heesaad hore
dhawaan bay ahayd markii aad ka soo baxday waxaan doonaynaa nolosha markii aad ku jirtay ee dad badan halkan maanta fadhiya waxay ka daawadeen shaashadaha waxa laga yaabaa inay kula kulmo marka waxaan doonaynaa sawir inaad sawir kooban naga siisid noloshaas siday ahayd waa maasantahay waa yahay soo gaagaabayaa la yidhi markaad arday iska taana waxbaa kula taraaraxaya dhib ma leh waa wixii iyo khayrkii aanu soo faa'iidaysanay naga raalli lahaad anugu arday baan ahay weli sida saaxiibkay oo kale anugu hadda waxba kama horreeyo saaxiibkay wax moodayaana wax badan ka horreeyo laakiin hadda waabay dhaafayba sababtay ku tahay xafladii baan u maraynaa iyo dhallinyaradii inaanu saxno marka waxaan leeyahay saaxiibkay horta waqti kaama tegaysaa waa runtaa saaxiib cabdimaaligow waan laba nololood oo haddaan su'aashaasi toos u abbaaro waa laba nololood waxaan idin xaqiijinayaa inay yihiin laba nololood oo aad iyo aad iyo aad u kala fog nololi waxa weeyaan waa nolol uu ilaahay subxaanahu wa tacaala sheegay oo qofka bini'aadamka ah hadduu soxo naftiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyada intuu joogo buu nolol wanaagsan oo raalli laga yahay buu ku noolaanaya aakhirana de waa janno taasi halkaa inoo dhig nololina waa noloshii aanu ka soo baxnay ee ahayd nolol aad iyo aad u liidata noloshaasi waa noloshuu alle dhinaca kale iyadana ku sheegay waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati alacma ilaa aakhir laaya marka noloshaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala dikriga ilaahay haddaad ka jeesato oo aad ilaahay xusi weydo oo aad ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyadan wuxuu kuu keenayba dee waa cibaadadaasi haddaad ka soo bixi weydo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad ku noolaanaysaa nolol ciriiri ah oo ciriirigu waa sidee ciriirigaan isweydiinno ciriirigu waxa weeye day muhiimaddu ma aha inaad lacag fara badan haysato anigiyo saaxiibkayba jeebkay nooga buuxi jirta intaannu shawiyo soo dhigno baa laga yaabaa inaannu 10,000 iyo 20,000 jeebkay noogu jiraan laakiin sidee uga noosha waxaad kaga nooshahay nolol ciriiri ah ilaa ilaahay baa ballan qaaday lacagtaas waxba kuu qaban mayso waa warqado waxay ku anficaysana ma leh maantay haddii aad dhimato waxaad is og tahay ilaa qof muslima baa tahay haddii aad dhimato fartaad horta niyadda ku haysaa nolosha ciriirigu halkaasa ka weyn nolosha farta ayaanu wadnaha ku hay jirnay oo waxaanu soran jirnay niyow berri haddaad dhimato saa dambe haddaad dhimato waayo maalin kasta waxaa lagu oranayaa fanaan hebel baa dhintay dugtiisa horta tegiba maysaba oo adiga waa gabanaya waxa kuu soo haray adiguna waa walwalaysaa maxaad ka walwalaysaa waxaad ka walwalaysaa ishraac inaad hesho qalbigaagu inuu raaxaysto ila cibaadada qofka ku raaxaysanaya waa raaxaysanaysaa واتو حديثك ليس القنى عن كثرة العرب ولكن القنى قنى نفس لعك فربضن وهذا يستطمع لكن والنفط هذا ودقطوطا أدقو كسو بحا وحي الله سبحانه وتعالى ذلك يهي مركا waxaan kugu soo koobayaa labada nololood waa laba nololood oo aad u kala fog Cabdimaaligo waxaan kala kugu darayaa maalin saaxiibkay uu ka baxay wax badan waa sheegay ayaan asbuuc kadib la soo xiriiray markaas waxaan ku yiri bal labada nololood ka war anigu markaasi markiskayga jooga bal ka war maxaa dareemaysaa Maxamed war hadda masaamiir la iga saaray biiro de kullu isaga ka warramay bagarad waa raaxaystay biiro asbuuci aan ka maqnaa balaayada iyo qubta iyo qacda waa raaxaystay marka saaxiib horta waa sida aniga laftigayga raaxo igama horeyn markaan xaramkii tagay oo sii tagay oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala caabuday waadigay nafta ay degtay wax walba hadda raalli baan ku ahay wax kasto igu dhacana raalli baan ku ahay wax kastaba raalli baan ku ahay oo waxaan ogahay in ilaahay subxaanahu wa ta'ala qadaray marka saaxiib waa nololood oo sidaas u kala sharaf badan waad maasay way taala lacagti ilaahay maxamed bin waraysan maxamed soo soonayno maxamed waxaan doonaynaa inaad
لله رب العالمين إلهي بمهد سكله كل كم قرب بدل السبوك كاني ما شاء الله مرلبات روحنا هم بلين يا برع ومن بركيسن ومن دينين قلبي قال لك السلام يا ما شاء الله وأي وشيء لكم مقطع مركي أمامي مركاني ككراها أكرم مركو حكيني وأنا الشيء معاني يباوك مركا إيدي حدي تكخير حدي سؤال عبد المالك الكتشواب ومدوي عدان مي ودغنا نمي كسور فوي أي عدان سمدو فانك سيدنا إفيا آخر من المفهوم إفكنا وقلن آخرنا وعدان لبا فنان كستا أو صوماليين أو أينو قرنينو هل كنت بيجي سويدية يوتيوب كبارة فنانين كعان كاي دوري هل كي كنت بيجي وينو قرنينا أفضل لو ماشي وكل كلمة تقوي سبب آلو ضيعان بوي ميل قرب بدل معها وميل عدو ملو أو مركا نعبره wax laga sheekay karo maaha waa wax horaal u ballan qaaday inaan dib ka qoro sida jiilka dambe ay u arkaan wadadan aanu hadda lacag ka saarnay anigu arday baan ahayo axmed khayr isagoo waa caalamda warshad markaan barto diinta maasha allah oo dee ay waxaan isiriyey wada jiilna markay barode maasha allah hadday wada jiilo waxaan u gelayaa qoladka caynka ahayd marka marba in baan baranayaa wadadani waxay ku qurux badan tahay qof qosliya ka hor imanaya khamiiska faraxsan habi ah waxaad rabto ku siinaya marmar waxaad weydiisato waxaa ka mid ah wax kastoo niyadaada aad kusoo dhacaa aad soo bandhigto way fulayaan oo ducada quraabata ku filan markii aan sanadkan aynu iminka bilowga sanadkii dhammaaday dhammaadkiis bilowgiisii waxaan joogay london waqtiyadanoo kale waxay ahayd waqti aad u madow laakiin galabta burcaan jooga oo faraxsanay walidaadee idinla qaadanaya waqtiga laba qodob baan ku daraya oo dhallinyarada aan ku dhiirigelin waxaan idin leeyahay meesha aan ka imi meel qurux badan may ahayn niyo meesha dhegaysigeed iyo hadalhaynteed niyo duduu baan idinku sheegay qaati meeshaas meel qurux badan mahay waayo tusaale ahaan ma doonayo magacyo inaan tilmaamo haddii fannaan kasta waa beri ahaa aynu soo hadal qaadno oo caan ahaa ama cod macaana meel xun inuu ku dambeeyey ninka yulaga bikiga bikee aniga soo raaca lama kala sheegaya waxaan ka hadlayaa daacadnimada iyo dulqaadka qofku hadduu sabir badan yahay qurxiba daacadnimo wuxuu helaa waddo fiican oo ilaahay jecel yahay dulqaada qofka kulliga ee dhibaatada ay gelisto ee fanku dhuuxiisa kalena cadaabun baa u dambaysa waxaan ka hadlayaa qabyaaladu wax qurux badan maaha qabyaalada inaad ka fogaataan aad badan jeclahay waktigii doorashada ayna saaran iminka